تخرجنا دعونا الله يحمينا ويبلغنا ذرى العليا ويبلغنا مرامينا. تخرجنا دعونا الله يحمينا ويبلغنا ذرى العليا ويبلغنا مرامينا. زرعنا في رياض العلم أزمانا أحاينا وحان قطاف ما زرعت بذي الأيام أيدينا. ثمار الجهد وقت الجد فرح صادق فينا ملكنا متعة الدنيا فهذا اليوم يحيينا. تخرجنا دعونا الله يحمينا ويبلغنا ذرى العليا ويبلغنا مرامينا. تقلدنا وساما بات يرقى في معالينا. dhammaan martida sharafta leh madaxda la soo doortay dumarkeena sharafta leh ardaydan wanaagsan ee qalin jabinaysa waalidiinta iyo dhammaan bulshada habaasweyn ku dhaqan iyo kuwa meelaha kala duwan nooga yimid culimadeeni waaweynaa baa joogo sheekh Mustacid sheekh Maxamed Saalax sheekh Bashiir Maxamed Colaad iyo kuwa sheekh Mahad Xuseen Diinle waa badan yihiin culimada haddii aan ka gaari waayo iyo dad badan oo kale oo marti sharaf oo halkan fadhiyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin maamulka madrasada Furqaan ama xarunta Furqaan ee islaamiga ah ee soo qabanqaabisay xafladan quruxda badan ee qalin jabinta ah. way ku mahadsan yihiin dadaal ba'an bay hayaan dadaal wanaagsan bay wadaan. anigu bishii 12aad ee hadda ina weydaartay bishii 12aad sanadkiina weydaaray taariikh 26 baa halkan joogay. waan la kulmay culimada iyo maamulka madrasada waxyaalaha badan ee wanaagsan ee dadaalka ah ee meesha ka hayaan ayay ii sharxeen waanan ku qancay. wixii mataqaanaa ee waxqabada ama markaas iyada aan u awoodnayna waan la qabanay. dadkii badnaa ee nagala qayb qaatayna ilaahay khayr ha ka siiyo. aad baan ugu faraxsanahay maanta meeshan inaan marti sharaf ka ahaado inkastoo waqtigu uu aad iigu yaryahay maalinta berri ah haddii ilaahay idmo salaadii horena layga doonayo Nairobi inaan joogo oo arrin deadline-keedu uu yahay maalinta kama dambaysta ay tahay berrito oo waraaqo badanna iiga baahan inaan sii buuxiyo ayaan u ordayaa. macallinkana sidaas oo kale waxaa kaloon mataqaanaa maanta soo maraynaa deegaano safarkii aan ku kala bixinaynay deegaanka inoo dhinaa. hawshan aan wadna ee diinta islaamka ardayda iyo dhallaanka lagu barayo diintana loogu gargaarayo diintana lagu fidinayo horta waa arrin aad muhiim u ah. deegaanadeena dhammaan in laga wada simana way tahay. waxaanad moodaa sanadahan dambe inaan kusoo baraarugnay arrintaa iyada ah. waana dadaal mataqaanaa ee bogaadin u baahan. waanan ku bogaadinayaa inta ku howlan. ilaahay xisaabtiinni iyo aakhira ha ku kabo. aniga si gaara noloshayda waxay wax uga bedelmeen markii aan ku biiray ama aan ka qayb qaatay howlaha diinta lagu fidinayo oo ummadeenna mataqaanaa diinta lagu barayo ama madaariista lagu caawinayo. sanadkii sheeko aan in badan sheegin baa idiin sheegayaa. sanadkii 2004 waxaan u malaynay 18 sano yaa laga joogaa. yaa sheekh Maxamed Saalax annagoo joogno magaalada Maka isagoo markaasi soo qalan jabiyey yaa wuxuu iigu yidhi khayr allah siiyo war cilmigayga ma doonayo aniga kaliya inaan ku intifaaco waxaan doonayaa inaan si mutadawacnimo ah aan ugu shaqeeyo ummadayda. anigana waxaan ku yidhi khayr allah ku siiyo anna garabkaaga nahay. wixii markaa ka dambeeyay ilaa maantana waan wada shaqeyn haynaa.
dadaal badan baa la qabtay arday badan baa mataqaanaa madrasooyin laga soo saaray ardaydii ka soo baxay taxfiidka iyo madrasada magaalada lagu magacaabo Biyomadow maanta iyaga imaamyo ka ah masaajidyada oo tahajjudka iyo taraawiixda dadka tujiyo alxamdulillah allahu akbar aniga marka noloshayda wax weyn baa iska bedelay waxaan u sheegayaa dadka meeshaas sir baa ku qarsoon haddaad doonayso in aad guulaysato howlaha ay wadaadada wadaan culimmadeena wadaan ku kabnow taageer noloshaada sida isu bedeshana idinkaa iiga sheekeen doono inta doonayso inay aflaxaan adduunya aakhiraba dadaalka ay culimmadeena wadaan ha lagu kabnaado anu dardaaranka ha laga qaato qof iga dambeeyana aan la weydiinin anigaa si dhab ah u arkay marka insha allahu tacaala waan taageeraynaa arrimaha diinta iyo madaariisteenna waxaa aad u adag oo ilaa iyo hadda caqabad nagu ah in waalidiinta ay u huraan lacagta ka fikiraan isku taxluujiyaan siday isugu taxluujiyaan iskuulka taasaa weli caqabad naga haysataa laakiin waxaan idiin sheegayaa waalidiinta cilmiga diinta lagu baranayo ama mataqaanaa diinteenna barashadeeda haddaynan ka wanaagsanayn marnaba kama liidato weliba waxaan aaminsanahay inay aad iyo aad uga faa'iido badan tahay cilmiga maadiga adduunka keliya ku anfacaya tan waa adduun iyo aakharaba aakharana ka aad iyo aad qur-aankeenana loogu sheegay xadiidka nabigeena sala allahu calayhi wasalam baana loogu sheegay aakhare iyo adduun wax la isku doorsan kara ma aha cilmiga diinta caruurta ha la baro ha la isku taxluujiyo in ka badan inta aad iskoolka isku taxluujinaysaan aniga waad ogtihiin waxaan u taaganahay kursiga baarlamaanka ee Wajeer South haddii ilaahay ii qadaro idinkana i doorataan diinta waxaan u noqonayaa tiir mataqaanaa adag oo ay ku tiirsan tahay insha allahu tacaala ballantaasi waa ballan idinka iyo ilaahay baan idinka qaadayo haddii aan ka soo bixi waayana qof walba oo idin ka mid ahay xasuusiyo meel walba uu igu arko inaan ka soo bixi waayana marna uma malaynayo maxaa yeelay aniga haba idiin sheegaya faa'iidooyinkaan hore uga dheefay marka intaasaan kusoo gabagabeynayaa ardaydan waan bogaadinayaa aad iyo aad baad mataqaanaa ugu ammaanan tihiin inaad mataqaanaa ee dhabar adeeg iyo mataqaanaa samir u muujiseen waxbarashadiinnii ilaa aad ka soo gaartaan heerkan qalinjabinta waxaan aad ugu farxay kuwo jaamacado sii galay oo horumarinaya oo hore u socdo intiina kalena kuwaasi jaamacadaha galay ku dayda diinta waxaan u baahannahay insha allahu tacaala in deegaankeenna uu ku sifoobo deegaan diinta islaamka gacanta midig ku qabtay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu